بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. مسألة waxbarashadu waa mas'alo aad u muhiima, runtiina ay iska adag tahay wakhtigan yare la tilmaamayo in mushkilad iyo xalkeed lagu wada sawiri karo. nidaamka waxbarasho ee galbeedka ka jira nidaam loogu talagalay qof reer galbeed inuu soo saaro. culimada educationku ama tarbiyadu ama culimada waxbarashadu inta aan laga waramin qofka maxaa loo dhigayaa iyo syllabus muxuu noqonayaa iyo waxa laga waramaa qofka la doonayaa waa kuma. marka ay mujtamacu ku heshiiyaan qofka ay rabaan, maalan waxaa la leeyahay waddan baynu joognaa Sweden, qofka Swedishka waa kuma baa la isweydiinaya, astaanta lagu yaqaanaa muxuu yahay. marka ahdaaf bay leedahay waxbarasho kasta oo waddan uu leeyahay, ahdaaf baa la dejiyaa 7 8 9 10 qolaba waxbay dejisataa. ahdaafta waxbarasho ayaa lagu saleeyaa nidaamka waxbarasho. مثال بسيط، يكير يهي قفكا انت انو سيديد يتوبن جير غارين ما غلي كرو سوقه ama shaqo ha noqoto ama waxana noqoto ama idan 12 sano in dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi secondary meelahan lagu hayaa waxa weeyaan in aanad wali gaadhin chance aad ku gali karto mujtamacaad ka qayb qaadan karto. iyadoo laga yaabo qofka muslimka in la rumaysan 15 haduu gaadhay dee waa qaan gaadhay ee magaaladiisa dhinaca ka galo in 15 jir markuu yahay waxay ahayd inuu garanayo xirfad uu ku xoogsado, qaabku uu noolaan lahaa, qof mas'uuliyad qaadi kari lahaa. idan nidaamka ku salaysan in 18 jir lagu qaan gaadho iyo nidaamka ku salaysan in 15 jir lagu qaan gaadha waa inay laba system waxbarasho kala gedisan lahaadaan bay ahayd. misaal kale aan ku siinayaa, manhajka waxbarasho ee waddan kasta uu leeyahay waa dhaqankiisii, dadnimadiisii ayuu u gudbiyaa qofka yar. يعني ilmaha aad dhashay genetically waa adigu ka tirsan yahay, laakiin siduu fakaraya iyo aqligiisa iyo suu wax u qiimeeyo waxa wanaaga ugu muuqdiyo waxa xumo ugu muuqdiyo waxaasi ma genetically laguma gudbiyo, yani laguma dhalo. idan waa in ilmihii looga tagaa wixii adiga kula fiicnaa waa inaad uga tagtaa. adigu nolosha sibaad u taqaanay waxba kula fiicnaa, waxbarasho hadday tay, hadday aakhiratay, hadday muctaqad waxba kula wanaagsanaa. wixii kula wanaagsanaa waxaad isku daysaa inaad ilmaha uga tagto. nidaamka waxbarasho marka waa qaabkii aabuhu iyo waalidku, siyaasiyiinta iyo waxgaradku ummadda iyo afkaarteeda loogu gudbin lahaa ilmaheeda yara soo kacaya si aan iswirishnimadu u dabar go'in. haddaba haddaad timi bii'a caynkaasiya oo waxbarashadii caynkaa tay, adna aad rabto inaad wax ku barto ilmo ka wada gedisan waxaasi oo dhan, dee waa mushkilad. laakiin waxaa laga yaabaa halkan markaan fadhino maanta awood inaan leenahay baraaca inaan soo bandhigo dhibaatooyinku siday u jiraan, laakiin inaanan in badan xal idiin helin baa laga yaabaa. waana dhib inaan waxna sharxi karo badiilna aanan keeni karin. waxaa jirta nidaamka waxbarasho reer galbeedku wuxuu ka kooban yahay guriga iyo madrasada oo isku xidhan. waayo asal baa yaalla odhanaya qof ummiyi ma jiro. ummiga maxaynu u naqaanaa inagu? qofka aan waxna qorin waxna akhrin soo maaha. qofka aan waxna qorin waxna akhrin inaga mujtamaceeni muxuu ka yahay? te qof caadi ah soo maaha. abaha iyo hooyada waxna ma qori jirin waxna ma akhri jirin inta ugu badan leh. tayagana inuu koriyo waxna barayo wakaasoo qof caadi ah bulshada ka mid ah bay ahayn. laakiin halkan qofka aan waxna akhrinin waxna qorin waa handicap, waa qof wuxuu dhiman yahay. idan kuma jiro
silabasku qaabku u salaysan yahay nidaam ah in guri ay joogaan dad aan waxna qorin waxna akhrininin waxbarashadu markaa waxay ku salaysan tahay qaab ah in guriga iyo dugsigu ay iscaawiyaan ama iskuulku oo wax kasta oo homework iyo syllabus iyo wax ilmaha loo soo diro inuu caawimana guriga ka soo heli karo oo dabeetana saa ku socdo innaga teeni Soomaaliya waxay ku salaysnayd macallimiintii iyo manahijta dadkii dajiyay waxay yaqaaneen reeraheenu inaanay waxna qorin waxna akhrinin marka waxbarashadaada oo dhan waxa mas'uuliyadeedu saareed macallinka iskuulka jooga iyo inspectorka iyo muraaqibka iyo wasaaradda waxbarashada halkan maaha waxbarashadu waxay ka dhaxaysaa bulshada dhammaanteed maadaama ay ka dhaxayso aabihii iyo hooyadii Soomaaliyeed ama aanay waxna qorin waxna akhrinin ama ay qoraan akhriyaan af kale ay ku qoraan kuna akhriyaan oo afkan yaryarku ay wax ku sitaan aanu ku garanayn odayga waxa laga yaabaa inuu af Carabi ku soo dhigtay ama inuu Ingiriisi ku soo dhigtay ama inuu af Soomaali ku soo dhigtay buugagta yaryar meesha lagu dhigayo wuu garanayaa laakiin dee afkan Swedishka ee aad moodo dad bukaa inay ku wada hadlayaan marka la wada hadlayo waxba odaygu kaga hadli karan maayo xagga Norway markaanu joogno way istacaydeen waxay yiraahdaan nin Swedish ayuu ku yiri baydaa mid Norwegian war miyaad xanuunsanaysaa may buu yiri Swedish baan haybu ku yiri yani xagga Norwegian markaa waxay tilmaamaan Swedish inuu yahay dad jilicsan oo caynkaasi ala kulli xaal afkaan ninka uu Norwegian ku sheegay inuu buko ninka ku hadlaya ee wax ku dhiganaya ee wax ku bartay iyo aabaha guriga jooga ama hooyada guriga joogta isma fahmayaan idan ardayga heli maaya caawimo gurigiya waa mid labaad wuxuu noqonayaa arday tacliintu marka ay ku culus tahay maadaama aanu caawimo gurigoodii ka soo helay waxa kaloo intaa dheer iskuulka waxa la soo dhigayaa muctaqadaad ka gadisan wixii aad rumaysnayd مثلا darwinism theory Charles Robert Darwin قالكي إنجليزي لورين شري هي فكرة ديسي وفكرة عادية أو إسكولة سي عادية لوجو صادقة أو حقائق علمية علماء لوجو أكيسيو وفكرة خيامة ترى بدل لك السمايسن مثلا نبرس كمان صالحش صوبنا نبرس كمان اللي يرادا كترسن وأحمر كده تقول داير كنا كيمي ضدنا أنو ولي قاعدين مال دحوسي صعده حقيقة لك كان هو صورة إلك أي جد لك صوغ قضي ليري وإلك قارنا بني آدم وجاء قارنا داير وجاء حقيقة هان مركي لبارين الضوافر باب النقطة حتى وحي شيء ينبى ما هي لكن كصغات كيبا الرسام لوجو يوحنا لوجو صوري قف ماذا حناوي يرير إنت كلنا صوت وصي أو دنا داير وجاء دنا دد علمه باب كم بالله صادق جايه معتقد الداروينيزم كونه سحيو ددك داير كيمي با معلن كيدغيا اسكول كيو سيلبس كيو صوراديو فوسلس يروبنا لوغو ركبو waxa soo dhan la isugu soo daray ilmihi mu'taqad kan buu sitaa waa wixii iskuulka loogu soo dhigay waalidkii aabihi ma sixi karayo idan waa dib waxbarashada galbeedka taale qof yar la baraya waa waxbarashada dib badan ku jirto xagan tacliimtan diiniga iyadana dib kale ka taagan dibta ka taaganay dhowr shayba way leedahay waa koow manhaj daraasiya oo loogu talagalay dadka qurbaha degan oo loo eegay dadkan iyo afkoodu inta uu leegyahay oo loo eegay suuqa iyo waxay kula kulmayaan oo loo eegay muctaqadaad ka soo horjeeda iyo aragtidooda oo loo dhigayaa ilmaha kani ma jiro maadaama aanu syllabus jirin waa wax iskaga socda si routine iskaga socda uun ku day